degmada Booqe gobolka Doolo waxaa laga dhagax dhigay dhismaha cusbitalka darajada koowaad oo laga hirgelin doono isla magaaladani. Haddaba cusbitalkan darajada koowaad ee laga hirgelin doono degmada Booqe gobolka Doolo ayaa waxaa si rasmi ah loogu wareejiyay shirkadda dhismaha Xaaji Buule dhulka ay ka dhisi lahayd cusbitalka magaalada Booq oo ah cusbital dhismihiisu uu fulinayo xafiiska caafimaadka ee dowladda deegaanka Soomaalida. waxayna mas'uuliyiinta maamulka gobolka Doolo iyo kuwa degmada Booqe gobolka Doolo ku wareejiyeen shirkadda dhul cabirkiisu dhan yahay 12,000 oo kilomitir. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Doolo mudane Cabdixakiim Faarax Jibriil iyo sidoo kale isku duwaha xafiiska caafimaadka gobolka Doolo mudane Cabdinajiib Xasan ayaa ugu horeynta halkaasi warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida SRTV ugu waramay. maanta waxaan joognaa magaalada Booq waxaan dhagax dhigayo hand over sameynay balaarinta hospitaalka Premier Hospitalka magaalada Booq oo adeegi doona insha Allah dad aad u fara badan oo degmada Booq iyo area-diisa dadka ku nool waxaan ku wareejinay shirkadda Qole Construction Xaaji Buule Construction dhulkaas oo ah 12 kilomitir oo dhul ah inuu bilaabo insha Allah galabta oo hadda waan dhagax dhignay shaqadii iyo sarfiska hawsha dhan waa dhameystiran tahay bilowgiistii jooga shaqadii iyo engineering dhameystiran boota muddo 18 bilood inuu insha Allah ku dhameystiro waxa agreement-iga heshiisku galay marka si aan ugu wareejino shaqada bilaabaan hadda agreement-iga waa sidaas soo shirkadiisi iyo shaqaalihii dad runtii soo rartay meesha keenay marka aan ku wareejinay dhulkii waan u dhagax dhignay insha Allah waxaan rajeynayaa waqtiga loo qabto inuu si fiican ugu dhameystiri doono maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka nahay wareejinta balaarinta cusbitaalka darajada koowaad ee degmada Booq oo ah cusbitaalkii koowaad ee ka baxsan xarunta weeyaan gobolka degmada Wareer oo laga hirgeliyo weeyaan gobolka Doolo cusbitaalkan darajada koowaad oo dhismihiisu kharash ku baxay lacag ku bixinaya xafiiska caafimaadka deegaanka waxaan ku faraxsanahay maanta inaan anagu ku wareejino shirkadii ku guuleysatay dhismaha waxaan tartankeedii nidaamkeeda dhan ku guuleysatay oo magaceeda la yiraahdo Xaaji Bulle General Construction Company aan maanta anagu si rasmi ah ugu wareejino dhulkeedii dhulkaas oo dhan 12,000 oo kaare kaas oo ah intii loogu talagalay in laga dhiso 12 qaybood oo ah goobaha adeeg bixinta ee lagu balaarin doono cusbitaalkan maanta balaarinta darajada koowaad ee waxa weeyaan cusbitaalka Booqe maanta aan balaarinta dhagax dhigaan aan goob joog u nahay waxaan markaa aad ugu faraxsanahay meesha uu ku yaalo waxa weeyaan degmadu meesha ku taalo oo xaqiiqatan ah meel bartama oo u dhaxaysa degmadii Booq degmadii Galaadi degmada Galxamur iyo waliba qaybo kamid ah degmada Danood in maanta waxa weeyaan ay fursad tahay annagana ahmiyad gooni ay noo tahay in balaarinta cusbitaalka laga hirgeliyo markuu dhamaado cusbitaalkan aan rajeynayno in wax fara badan waxa weeyaan baahi oo loo qabay inay u safraan dadku ilaa 180 kilomitir oo ah cusbitaalka ugu dhow ee cusbitaalka guud ee ku yaala magaalada Wareer 180 kilomitir inay u jiraan marka in maanta halkan laga dhiso balaarinta cusbitaalka oo aan rajeynayno sidoo xafiiska caafimaadku qorsheeyay in lagu gabagabeeyo sanad iyo bar laakiin shirkadu ay ballan qaaday wax ka yar sanad inay ku gabagabeynayso iyadoo aan ku kalsoonahay waxa weeyaan shirkadan balaarinta sameynaysa aad baan ugu faraxsanahay wana soo dhaweynaynaa insha Allah haddii Allah uu ogolaado cusbitaalka markuu dhamaadaan wax fara badan buu xagga caafimaadka naga bedeli doona insha Allah haddii la yiraahdo